السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أصحابتي ذو حين نقول سلام يا سلام دقوا خير قبضان أو تعصوا سلام دتك دتك سكو جعل تصنبح ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنتوا حنا كانوا يستاجئين أن نقلها الله فضل وين أو غفل بغفك وجعليا وشيء كرم معايا لغفل بغفك وجعليا وشيء وح أثقة وجعليا هاي النبي عليه الصلاة والسلام وحكوا رمي maalinta berita iyo beridan baa inay nagu soo aadan tahay maalimo khayr badan. xadiis laga wariyay imaam muslim uu wariyay abu hurayra wuxuu yiri abu hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam afdalus siyam ba'da ramadan siyam shahri allah al-muharram wa afdalus salati ba'da al-maktuba salatul layl. abu hurayra wuxuu ku yiri xadiiskaas nabiga alayhi salatu wasalam wuxuu yiri soon la sooma بعد رمضان كدب صون لصوم وصل صيام المحرم شهر الله المحرم بش إلهي المحرم أول صوم أو فضل بدن وعير صلاة لتكذا واجب كدب وحقو فضل بدن صلاة الليل. النبي عليه الصلاة والسلام شهيد كين هذا أنقذ نوعي هاي وحنا كل حجرنا بشي محرم وكسو بيجن بريتو بإذن الله الكريم ما ننت سجالات maalinta sagaal waa maalintii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu balan qaaday inuu sidoo kale xadiis laga wariyay xadiis ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam la in baqita fi sanati alqabil hadan baaqina sanada soo socda ay fi sanati alqadima la sumanna min at-tasi' wa umar bi simamiha maalinkaas wuxuu faray soonkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam sababta oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu faray waxay tahay khilaaf al-yahuud yahuudu la khilaafayo. waxaa soo aroortay xadiis kaleeto xadiiskaas oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu yimaaday madiino wuxuu arkay yahuudda oo soomayso markaas ayuu weydiiyey maxaa u soomaysaan markaas ayay yidhaheen maalinka tobanaad ay soomayeen markaas ay yidhaheen maalinka waa maalin weyn maxaa dhacay nabiga calayhi salaatu waxay yidhaheen waa maalinkii nabiyullaahi muusa u badbaadiyey allah uuna haligay fircawn. sidaas ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu yidhi أنا إني حق بدن إن الصوم أنا إني حق بدن نبي الله موسى إن الصوم وأنا صوميا نبي عليه الصلاة والسلام محجي ما دام يصوم يهود مالك طبعا إن لجهر مريم مال أو مال لجد مريم سياس درتيت وحن إسكبر رجينا ونسكب عدينا إن الصوم مالك مذا ما هي الفائدة اللي ده هاي إسكبر رجينا واحد هاي qofkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ka jawaabay waxa la weydiiyay siyaam yawm ashura faa'iidada leedahay waa maxay markaas ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa la isku dhaafaa dambigii sanadkii la soo dhaafay la isku dhaafaa maanta waxaan ku jirnaa 1442 dambigi ina gashay waas ogta laakiin ma taqaan dambi aa gashay waxaad ina ka baris in ilaahay noo dambi dhaafo dhamaanteen dambiga aan galnamidaan ognahay mid kaleba in ilaahay noo dambi dhaafo ilaahay waa mid kaasan ka qarsoomin ilaahay waxa weydiisanay noo dambi dhaafo ilaahay agtiis ka hada ayaa weydiisanayna inuu rabbi subhanahu wa ta'ala noo dambi dhaafo maadaama anaga aan nahay adoomo daciif adoomadiisa waxaan isku baraarujinaynaa maalinkaas waa maalin aad u fadli badan sida nabiga calayhi salaam xadiiskiisa aan ku furanay afdalus siyam ba'da ramadan siyam shahr al-muharram muraadka laga leeyahay muharram in la soomo waxa waaye badbaadintii nabiyullaahi musa la badbaadiyay maalinkii tobanaad marka haysdihin sagaal ama 12 maxaa lagu daraa mukhalafatul yahuud waaye sababta xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinka sagaalaad loo soomayo ama maalinka 12aad maalinka hadii ku soo aado tobanaad markaas soonto waxa laga baahan yahay inaad ka hormariso ama inaad ka dib mariso saas ayaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam wallahu subhanahu wa ta'ala